sidii aynu ku aragnay qaybtii hore Shawjeen wuxuu adeegsanayay khariidada xidigaha si uu ugu yeero markabka Julon. Dhammaan boqorradii daraagonka waa la soo ururiyey waxaana la bilaabay xafladii loogu yeerayay markabka. Markii markabka Julon uu soo muuqday dhammaan daraagonyadii yaryara iyo dagaalyahanadii goobta joogay way fuuleen markabka. Qofka keliya ee aan fuulin wuxuu ahaa Lande kaasoo dib uga haray. Laakiin intii ay dadka markabka fuulayeen adeerkii Yanjinjen ayaa adeegsaday warqadii qadiimiga ahayd si uu Shawjeen iyo saaxiibadiis dib ugu celiyo jasiiradda daraagonka isagoo doonayay inay halkaas weligood ku xayirnaadaan. Nasiib darro isaga qudhiisa ayaa sidoo kale lagu soo riday jasiiradda. Kadib waxaa dhex maray isaga iyo Shawjeen dagaal aad u xoog badan. Ugu dambayn Shawjeen wuxuu adeegsaday awooddiisii oo dhan wuxuuna sameeyey god madow oo aad u weyn kaasoo gebi ahaanba baabi'iyey odaygii. Laakiin Shawjeen isaguna tamartiisii oo dhan ayuu ku bixiyey wuuna miyir beelay. Yanjinjen ayaa markaas gacmaheeda ku qabatay Shawjeen. Muuqaalka xiga waxaa lagu arkayaa iyaga oo weli fadhiya xeebta badda. Shawjeen weli miyir ma uusan helin wuxuuna madaxiisa saarnaa dhabta Yanjinjen. Iyaduna si degan ayay dhiiggii uga tirtiraysay jirkiisa iyadoo adeegsanaysa masar ay wadatay. Laakiin wax yar kadib waxay aragtay in saaxiibadii Shawjeen ay goobta soo gaareen. Isla markiiba si taxaddar leh ayay Shawjeen dhulka u seexisay dabadeedna iyadu dib ayay uga durugtay. Saaxiibadii Shawjeen markii ay arkeen isagoo miyir la'aan ah waxay u maleeyeen in Yanjinjen ay wax u geysatay. Koko ayaa markiiba adeegsaday geedka qarsoon si uu u daaweeyo Shawjeen. Dhanka kale makhluuqaadkii la socday Shawjeen waxay u dhaqaaqeen dhanka Yanjinjen iyagoo u haystay inay iyadu sabab u tahay dhaawiciisa. Laakiin Koko ayaa si cod dheer u qayliyey taasoo sababtay inay dib uga laabtaan. Wax yar kadib Shawjeen ayaa miyirkiisii dib u helay. Saaxiibadiis ayaa fadhiisiyey. Markaas boqor Yama ayaa weydiiyey maxaa halkan ka dhacay. Odaygii xagee buu ku dambeeyey Shawjeen ayaa ugu jawaabay hawelwelina. Isaga waan ka takhalusay. Hadda aynu inaguna halkan ka dhaqaaqno. Markaas ayuu soo qaatay dharkiisii wuxuuna bilaabay inuu mar kale xirto. Shawjeen ayaa iska indhatiray Yanjinjen wuxuuna bilaabay inuu halkaas ka tago. Yanjinjen arrintaas aad bay uga xumaatay. Boqor Jin Guwan ayaa u gacan haadiyey isagoo ku yidhi tag waxaad tahay xor. Way sii daayeen laakiin Yanjinjen ma doonayn inay ka fogaato Shawjeen. Waxay u yeertay iyadoo leh waad ku mahadsan tahay inaad noloshayda badbaadisay. Laakiin Shawjeen ayaa si qabow ugu jawaabay anigu dad ma badbaadiyo waxaan keliya dilaa cadowgayga. Mana aanan qorshayn inaan ku badbaadiyo. Markuu hadalkaas yidhi ayuu sii socday. Yanjinjen ayaa neef qoto dheer qaadatay dabadeed waxay ku tidhi waan ogahay inaad ii cadhootay sababtoo ah aniga dartay ayaad ugu xaniban tahay jasiiraddan. Laakiin i rumayso wixii kugu dhacay anigana si la mid ah ayay ii saameeyeen. Fadlan ha iska kay indho tirin sidan. Markii uu hadalkaas maqlay Shawjeen ayaa si degdeg ah seeftiisii ula baxay wuxuuna ku tuuray dhankeeda. Seeftu waxay si dirqi ah u agmartay qoorteeda waxayna ku dhacday dhagax ka dambeeyey. Yanjinjen aad bay u argagaxday. Shawjeen ayaa u soo dhowaaday wuxuuna ku yidhi ma waxaad u malaynaysaa in xaaladaada iyo taydu isku mid yihiin. Waxaan sameeyey wax kasta oo aan awooday si aan uga baxo jasiiraddan. Waxaan sannado badan ku noolaa nolol aad u adag ugu dambayna waxaan helay fursad aan gurigayga ugu laaban karo. Laakiin fursaddaas way iga luntay. Sababta keliya ee ay u luntayna waa adiga. Haddii aad hore u dhiman lahayd waxaas oo dhan iguma aysan dhaceen. Hadda waxaan halkan ku xayirnaan doonaa 100 sano. Marka ii sheeg yaa dulmi badan la kulmay. Adiga mise aniga. Markii ay hadalkaas maqashay Yanjinjen way aamustay. Xitaa maradii ay gacanta ku haysay ayaa ka dhacday. Markii maradu biyaha ku dhacday si lama filaan ah qaab tamareed ayaa mar kale uga soo muuqday goobta. Dhammaantood aad bay ula yaabeen. Isla markaas waxaa mar kale la maqlay codkii shaydaanka cas isagoo ku leh Shawjeen si degdeg ah iigu dhiib geedka yar ee quduuska ah. Markuu hadalkaas sheegay ayuu jirka Koko xoog kaga soo saaray geedka yar ee quduuska ah isagoo gacantiisa ku soo jiiday. Shaydaanka cas ayaa yidhi geedkan yar ee quduuska ah waxaan hayn doonaa dhowr maalmood oo keliya. Beddelkeedana waxaan kaa caawin doonaa inaan u yeerno markabka boqorka shaydaanka kaas oo idinka saari kara jasiiraddan. Markii uu hadalkaas maqlay Shawjeen aad buu ula yaabay. Wuxuu yidhi sidee ayuu markabka boqorka shaydaanku nooga saari karaa halkan? Maxaanse hadalkaaga ku rumaystaa? Shaydaanka cas ayaa ugu jawaabay looma baahna inaan caddeeyo inaan run sheegayo. Adiga dartaa ayaan xusuustaydii dib ugu helay sidaas darteed waxaan rabaa inaan hadiyad yar ku siiyo. Hadiyaddaasina waa inaad adigoo adeegsanaya markabka boqorka shaydaanka ka bixi karto jasiiraddan. Aniguna waxaan kaa caawin doonaa sidii loogu yeeri lahaa. Laakiin Shawjeen ayaa yidhi waxay ila tahay inaad been sheegayso. Si aan ugu yeerno markabka Julon waxaan marka hore soo ururinay dhammaan boqoradii Dragonka.
marka sidee baad ugu malaynaysaa inaan u yeeri karno markab boqor iyadoo aanan haysan wax boqor ah? Shayddaanka cas ayaa yara qoslay oo ku yidhi, wax badan ayaadan weli baran. waxaad hadda uun ka timid boqortooyada dhimashada una gudubtay boqortooyada aan la dhiman, waxaana weli ku harsan wax badan oo aad baran doonto. Markuu hadalkaas yidhi wuxuu isla markiiba sameeyey qaab tamareed aad u weyn. kadib wuxuu u sharaxay, markabka boqorka shayddaanka wuxuu la mid yahay markabka Juulon. wuxuu leeyahay awoodihii uu lahaa markabka Juulon, wuxuuna si fudud u jebin karaa xayndaabka ku wareegsan jasiiraddan. si aan ugu yeerno waa inaan dhisnaa habka sagaalka god ee samada gaaraya. waxaan u baahanahay saddexdaada jinni ee qalfoofka aan dhiman si ay u sifeeyaan tamarta quduuska ah. markay tamartaa sifeeyaan waa in lagu ururiyaa bartamaha qaabka tamarta. markabkan wuxuu u baahan yahay tamarta mugdiga oo aad u badan si uu u soo muuqdo. markii uu Shawjeen maqlay hadalladaas wuxuu is yidhi, waxaan moodayay inuu yahay shayddaan ka soo baxay dhulka hoostiisa. laakiin hadda waxay ila muuqataa inuusan shayddaan ahayn ee uu yahay halyey geesi ah oo ka tirsan dunida aan dhiman. kadib ninkii dagaalyahanka ahaa wuxuu Yanjinjen siiyey dhagax fiyoole ah isagoo ku yidhi, tani waa farsamo la yidhaahdo habka dagaalka ee isku ururinta iyo baraaruga. tamarta mugdiga ee aan hadda ka hadlay waa tan ugu muhiimsan ee loo baahan yahay si qaabkan tamareed u shaqeeyo. shayddaanka cas ayaa sii watay hadalkiisii isagoo leh, qaabkan tamareed ayaa dhaqaajin kara dhammaan awoodda goobtan. si kooban farsamadan ayaa lama huraan u ah u yeeridda markabka boqorka shayddaanka. kadib wuxuu Shawjeen ku yidhi, marka dagaalku bilowdo waxaa soo degi doona shuruucda samada iyo dhulka. laakiin ka hor inta uusan wakhtigaasi imaan waa inaan dib u soo ceshadaa jirkaygii dhabta ahaa. taasi darteed waxaan maalmo yar tegayaa meel fog anigoo adeegsanaya geedka yar ee quduuska ah si aan jirkayga ugu soo celiyo sidii hore. adigana waxaad u baahan doontaa hub aad dagaalka ku gasho. waa inaad raadisaa oo soo heshaa hubkaas. dagaalkii hore ee weynaa waxaa halkan yimid halyey ka socday dunida Kuyushu kaas oo ahaa dagaalyahan aad u awood badan. wuxuu dilay jiniyo tiro badan. waa inaad raadisaa seeftiisii oo dib iigu keentaa. markaas Shawjeen wuxuu galay god. gudaha godka wuxuu ku arkay daraagon yar halka daraagono waaweyn ay eryanayeen si ay u dilaan. daraagonkii yaraa si dhib badan ayuu uga baxsanayay weeraradooda. markii Shawjeen arkay wuu gartay oo wuxuu yidhi, kani waa isla daraagonkii yaraa ee markii hore badbaaday. laakiin waxay u muuqataa in noloshiisu weli halis ku jirto. isla markiiba Kooko ayaa u carartay si ay u badbaadiso. waxay adeegsatay awooddeeda kubadda tamarta iyadoo daraagonadii waaweynaa ku xanibtay hal meel. daraagonkii yaraa markuu arkay inay dhaqaaqi kari waayeen wuxuu afkiisa ka sii daayay dab xoog leh. hal weerar oo keliya ayuu ku baabi'iyey dhammaan daraagonadii waaweynaa. wuxuu dareemay farxad balse markii uu arkay Kooko halkii uu uga mahadcelin lahaa ayuu aad u cadhooday. Kooko waxay isku dayday inay ka haysato laakiin daraagonkii yaraa si cad ayuu u diiday wuuna iska dhaqaaqay. Kooko arrintaas aad bay uga murugootay. dhanka kale Shawjeen wuxuu arkay seef hortiisa taal. markuu arkay ayuu yidhi, waxaan hubaa in tani tahay seeftii uu shayddaanka cas ka hadlayay. seeftani waa hub awood u leh inay la dagaalanto xitaa halyeeyada ugu xoogga badan. laakiin isla markii uu u dhaqaaqay dhanka seefta waxaa si lama filaan ah uga soo muuqday daraagono fiyoole ah oo badan kuwaas oo ilaalinayay seeftaas. markii daraagonadii fiyoolaha ahaa ay weerar ku soo qaadeen Shawjeen wuxuu isla markiiba la baxay seeftiisii isagoo xawaare sare ku weeraray. intuu hore u sii socday wuxuu mid u laayay daraagonadii jidkiisa hor istaagay. inkasta oo daraagono badan ay si isdaba joog u soo baxayeen haddana midkoodna ma uusan awoodin inuu dhaawaco ama joojiyo Shawjeen. sidaas ayuu ugu dambayn si nabad ah ku gaaray goobtii ay seeftu taalay. markaas ayuu yidhi, waxay ila tahay inaan seeftan halkan kala baxo. wuxuu isku dayay inuu seefta soo bixiyo balse markiiba wuxuu dareemay inay aad u culus tahay. wuxuu adeegsaday xooggiisa oo dhan laakiin seeftu ma dhaqaaqin. waxay u muuqatay inay wax ku dhigan tahay ama culayskeedu aad u weyn yahay. isla markaas waxaa mar kale soo muuqday daraagonkii fiyoolaha ahaa. Shawjeen ayaa is yidhi, waxay ila tahay in jirkayga ruuxiga ahi uusan weli xoog ku filan haysan. markaas ayuu xusuustay hadalladii shayddaanka cas. kadib wuxuu si buuxda u sii daayay awooddiisa ruuxiga ah. waxaa soo baxay jirkiisii ruuxiga ahaa kaas oo xooggiisa oo dhan ku jiiday seeftii. markan seeftii way soo baxday. isla markiiba Shawjeen ayaa seeftaas ku weeraray daraagonkii fiyoolaha ahaa. hal weerar gudaheed ayuu daraagonkii gebi ahaanba ku baaba'ay. tamartii daraagonka oo dhanna waxay dib ugu noqotay seeftii ka timid dunida Kuyushu. markii Shawjeen nuugay tamartaas oo dhan ayuu eegay seeftii wuxuuna yidhi, laakiin tani waa seef jabsan.
yuu ahaa halyeygii ka yimid dunida Kyushu ee lahaa seeftan mise wuxuu ahaa halyeygii ugu xoogga badnaa dunida Kyushu? Kadib Shoujen ayaa u jeestay Koko wuxuuna ku yidhi, ma rabtaa inaan seeftan horay u qaadano? Intaas dabadeed wuxuu la hadlay daraagonkii yaraa isagoo ku yidhi, ma rabtaa inaadna soo raacdo oo aad jasiiradan aan ka wada baxno? Laakiin daraagonkii yaraa wuu iska indha tiray hadalkiisa wuxuuna bilaabay inuu halkaas ka tago. Markii uu Shoujen arkay arrintaas waxaa maskaxdiisa ku soo dhacay fikrad cusub. Wuxuu u yeeray daraagonkii yaraa isagoo leh, waan ogahay waxa aad rabto. Shoujen ayaa ku yidhi masduulaagii yaraa, haddii aad rabto inaad la dagaalanto boqorrada daraagonka marka hore waa inaad raadisaa. Laakiin hadda kuma jiraan jasiiradan, dhammaantood way ka tageen. Markuu taas maqlay masduulaagii yaraa aad buu ula yaabay wuxuuna eegay Shoujen. Shoujen ayaa markaas sii raaciyey, anigu waan ogahay meesha ay boqorrada masduulaayadu aadeen. Haddii aad rabto inaan ku geeyo waa inaad isoo raacdaa. Markii uu sidaas yidhi masduulaagii yaraa wuu aqbalay. Koko aad bay ugu faraxday arrintaas. Halkan ayay ku dhammaanaysaa qaybta 51. Asxaabta sharafta badan like inoo saara muuqaalka haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsan tihiin daawashadiina.